kaas oo ka mid ah madaxa muqaabaraadka ahna taliyaha dabagalka hay'adda NISA saaxiib dhinula ah madaxweyne Farmaajo ee Fahad sida ilaha xogtan ay noo xaqiijiyeen. Cabdullaahi Dheere ayaa la ogaaday in si toos ah kun ula qaatay ra'iisul wasaaraha kuna wargeliyay digniinaha la xiriira inay jiraan rag ka tirsan xafiiskiisa oo la rabo in la beegsado. waxaana xilligaasi muuqanaysa in ra'iisul wasaaruhu xilligaas uusan jirin baraarug weyn oo ku saabsan beegsiga la doonayo in la beegsan karo qaraxyada ah ragga asaga u dhow ee saaxiibadiisa. weerarada lagu bartilmaameysanayo garbaha ra'iisul wasaaraha ayaana bilaabatay bishii November markaasoo la beegsaday xubno asaga u dhow. weerarkii ugu dambeeyay ee qaraxyada ah waxaa lagu qaaday Maxamed Ibraahim Maclimo afayeenkii xukuumadda oo la beegsaday waxaase ka sii horeeyay laba qarax oo kale lagu beegsaday shakhsiyaad ra'iisul wasaaraha u dhow mid wuxuu ahaa agaasimiye Radio Muqdisho Cabdicasiis Afrika halka midka kalena qarax lagu qaarajiyay gabar iyo wiil ka mid ah howlwadeenada xafiiska ra'iisul wasaaraha. dhammaan dadkaas la beegsaday waxay ahaayeen garbaha ra'iisul wasaaraha uu ku duulayay waxayna ahayd shirqool la soo abaabulay aysan ahayn maskax al-shabaab ka timid ayuu yiri nin ka mid ah muqaabaraadka xubnaha dhanka sirdoonka qaabilsan. taliyaha dabagalka NISA Korneyl Cabdullaahi Dheere ayaa bilooyinkii ugu dambeeyay qayb ka ah saraakiil kaliya ee